कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला। हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला। eedo run ahaantii aniga ma aqaan gabadhan sidee dhibaatadaas faraha badan leh ugu dulqaadatay. mooli iyo kunaal waxay ahaayeen laba qofood oo isjecel oo isku faraxsan, laakiin nandani maanta u timid ayay masiibo ku noqotay. mooli abbaay waxaan rabaa gabadhayda booska hooyadeed inaa u buuxiso, adigoo keliyaana ka soo bixi karo. filimkani waxaa loo tarjumay gabadheedu waxay rabtaa ishaam inuu moolin guursado, anigana waxaan ku qasbanahay riyada gabadheeda inaanu rumeeyo. teeda kale eedo kunaal reerkiisa waa reer aad u fiican. mooli maalinta uu cidleeya kunaal ayaga ayaa garabkeeda istaagay, marnaba cidle ma dareemin. waa reer wanaagsan. laakiin reerkii wanaagsanaa aawe maanta uma jeediya xaggee ka baxeen. musalsalkani wuxuu gaar u yahay muqdisho sababtoo ah aniga mooley waxaan ahaa daarti wiilkayga ishaan inaad guursato. waxaa loo baahan yahay reerkaas inaad faraha ka soo qaado oo weliba aniga ii soo go'do. yaa mooley shardigaan la gala ayada way ka soo baxsatay, reerkaadna way ka soo fogaatay. wiilkayga ishaan jecel ay u qabta ayay midaan u samaysay, wax kale ma jiraan. eedo maxay dhahday? aniga midaan maba aaminsanay. mooli reerkii aan ogaay ee jeclaad intaasoo sano ee la nooleed miya maanta meel cidlaa ugu soo dhaqaaqday? maya, aniga taas ma aaminsan. mooley waxay diyaar u noqotay reerkaas inay ka soo fogaatay oo wiilkayga ee nolosha la qaybsato. ilaa wiilkayga iyo ayada jecel weynaa ka dhexeeya, soo ma ogid. run ahaantii mooley waa gabar fiican. waxaan ugu ducaynayaa nolol qurux badan inay ku noolaato, noloshii hore ee soo martan inay iska ilowdo, wiilkayga ee nolol la qaadato. waalanka eedo aniga waan rajaynaa farxad inay ku noolaato, maxaa yaal dhaawacyo fara badan ayaa hore loogu geystay. guurkan aniga ayaa ogolaaday. mooley guurkayga hore waxyaabo ku saabsan aniga maraba wiilkayga guurkiisa inuu ku baaba'o, middaasna waan ka soo horjeedaa. fiir hadda labadooda siday u wada faraxsan yihiin. aniga halkan waxaan u taaganayaa wiilkayga dhibaato walba ay ku soo socoto inaan ka hortago, mana doonaya wiilkayga farxaddiisa noloshii hore in loogu soo dhex daro, mana u dulqaadan karo. middaasna ma aqbalaayo.
guursaday way isla noolaayeen eed mooli idhageysa kaligaa maa inta timidne laakiin waxaan ku weydiinaa kaligaa maxaa halkaan u timid yaa kula socda ii sheeg qof maa kula socda ma ila hadaysid gabadhayda maya anigu waxaan u imaado eedda mooli iyo mushkil inaan la kulmo laakiin sabab eedda adiga ma ogid miyaana aniga iyo mushkil isku aabba ayaan nahay aniga aabbahay iyo eedda moolina hore ayay isku soo guursadeen mushkil waa walaashay eedda mooli iyo aabbaheena hore ayay isku soo guursadeen maadaama isqabi jireen aniga hadda hooyaday ma noqon karta miyaana eedda mooli ii sheeg eedda adiga hadda maxaa diidi kara inay hooyaday noqotona aniga waxaan rabaa inaan la kulmo waa muhiimna inaan la kulmo waa ku barya eedda ii fasaxno inaan la kulmo ayaan u baahanaa hal mar oo keliya gabadhayda wax walba aniga ayaa kuu sheegaya waxaa loo baahan yahay inay dhegaysato mooli iyo kunaal waxay ku kala tageen hooyadaa madaxeeda haddana waxaan rajaynayaa qof hooyadaayoo kale inaan saaxiib aanba la noqoninbo saasadiin hooyaday qof xun maahan waxaa soo qaladana ma suubin karto adigana hooyaday ma taqaan ha eedeen marka waa ku baryaayay hooyaday qalad dhan ma lahayn musalsalkani wuxuu gaar u yahay hooyaday aniga ayaa ka wataas eedo marka waa ku baryaaya wuxun adi ha sheegin hooyadayna aflagaadaynin hooyada aniga si fiican u aqaano magaceed waxaa la dhihi jirnan danii waana qof xun eedada hadalkeedana waa runteed hooyadaha oo kale in lala saaxiib ma astaahisho maya saasaa dhihin maya maxaad u dhehaysaana aniga iyo mooli diris ayaan ahayn mooli hooyada way soo dhowaysay gurigeeda ayay keensatay garab buuxana way siisay laakiin abaa maxay ugu dhigtay ma taqaanaa ninkeeda ayay kala wareegtay qoftaas maallada qof fiican waa marka jecel ayay ku abuurtay hooyada kadibna sidaas ayay ku guursatay reerkeeda ayay ka burburisay masaakiinta aniga arrintaas markaas soo xasuusto xanaaqa ayaaba igu sii siyaado hooyaday qiyaamalay maahan idhagaysa gabadhayda adiga cunug yar ayaa tahay arrinta waxaan kuugu sheegayna waxay tahay inaad ogaatid wejiga dhabta ee hooyadaa leedahay gabadhayda barii meeshaan iskaga tag intaanoo dhan annaga waxaan kuugu sheegnay moolii inay hooyada ay qalad weyn ee ka gashay intaas ayaan kuu sheegnay teeda kale adiga waxaa kuu wanaagsan moolii nolosheeda inaad ka fogaato iyo weliba mistii inaad ammaan siisa ayaa kuu roon haddana adiga meeshaan iskaga tag soco idhegayso halkan iska sii taagnaaw qof gurigiina ku geeyo ayaa halkan ka soo wacaya okay barmiilaha ku aabahe koobkayga shaygaya waa inaad ii keentaa barmilaa ma joogto hoos ayaa jirtaa maantana aniga ayaa shaah ku siinaya weliba gacanteeda yaab iska heli kara igaarkee kunaal maanta miskeeyaa timid wax kalena muu imaanne minanka waxay u timid dharkeeda inay aruursato anna waa iska mashquulsanaya ma ogtaa mooli maa la socotay maya ishaan ayaa la socday ishaanna hoos ayuu ku sugaya isagana hore ayuu alaabo u soo gadanaya maxaa yeele maanta waxay qabaan xalfad laga yaabo ayay dhigteen sidaas ayay alaabteed u qaadatay barii ku aawa adiga barii ooy maxaa kuugu dhacayne
هاي بري ما عرفت أديك بكل سعتين أنا كم حد يودينا سا برميلا بري أديك كل ساعة معك هذا ليس أمرك إيش يقبل الله كي أنا هاد ما هاي وواي مالك بحضر ما أقاني وهرادي هاي ما أنت ده يا أنا كمال كستوى كرادي وأنا كواي آمنة ما أقان مالا جرت أنا وواي سأورادي هاي بورد سوري هذا نقصه بري رجع لي بري 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 بريكو أبو بناكو الصباح عقيكو جرتا بري 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 بناكو الصباح هذا بلا صعب حيامان وكل لغم عيارو هاي احنا جينا كلها بري سكر هنا قبل أن نبكي بدن بري بريكو أوي بري قبل يدك قوي بري بناكو الصباح بري بري هويو ها قبل يد مصاركتي ميا أديك ما عرفتي adna gabartay ma soo aragtay ميا أنك سوك أنا أي أنيقا بري بري قبل أنا ما أركن واي هذي قريك جون بناك ليس جون حقي هذه كرتا هوي إن بري مشتي أما استقالين لي ما عرفت لبضو تكون خيلنا مايا ويلكيga labadoodii si farxad leh ayay u sheekaysanayeen taada kale bari markay bixayso way qoslaysay wax xumaan wajigeeda kama muuqanay marka sidee ku dhigi karnaa واي هذي سيدا استعمالي إنا waan ku مسلسل qasbanaa wuxuu wax gaar u yahay muqdisho cable tv eedo aniga mooli ayaa soo caawinaa oo soo laabana hay asxaabta waa idin soo noqonaa sidoo dhaqsiyaha badan ya waaw beelaa tahay hadda la guriga ku soo birtay hawsha dhan waa kala tuurtay adiga qof caadi ah matiida ku dhahay mooli maanta markaa arkay wejigaaga dhoola cadaanta ka muuqata aadaa u farxay maxaa yeelay hadda kadib ani adiga dad diris mani waxaanaane dad famila mii fahmina hadda macnaha run ahaantii iswitii aniga kuma fikiraynin labadeena mar kale inaan kulmi doono balse hadda aniga wixii horeo dhan waan iska iloobay sababtoo ah nolol cusub ayaan bilaabanayaa aniga adigana maanta kadib diris manihin ee waxaan ahay laba qofood oo famil ah noloshii hore iyo xusuusteedana way isku soo dhammaatay مولي يجي خبط سلافك نقصه دي بدنا هوي سلافك بيجي خبط نص waxaa laga yaabaa inay mashquulsan tahay ku celi adiga ويقدم يسمحان كو علي yaa wiilkayga hal mar baroobee bal haddana هيك هذا maxaa dhacay ويقدم يس mooli bal fiiri waqtiga siduu isku beddelay adiga iyo kunaal waxaa ahaydeen laba qofoodo si xadaaf isku jecel haddana waa kan nasiibka sidaan ayuu idin kala eriyey maxaan dhihi karaahay aniga waxaan wax qoran ayay ahaayeen laakiin waxaa jira hadallo ama dad qara aan la iloobi karin micnaha hadda bal fiiri nolosha jaanis labaad ayay ku siisay adigana waad ka faa'iidaystay anigana waan ku farxay weliba adigoo ah qof garooba oo weliba gabar wadato ishaanna wuu ku aqbalay maxaa yeelay ishaan waa wiil aad iyo aad u wanaagsan teeda kale way kugu adag tahay ishaan inaad farxad siisid laakiin maxaad samaynaysaa waddo kale ma haysatid waa inaad intaas samaysaa oo keliya mooli jaceylka iyo farxadda fara badnaa ee kunaal aad siisay ilama ahna ishaan inaad siinaysid waayo way kugu adag tahay adiga waxaan u malaynaa inaad isku dayi doontid soo ma ahna isweytay waad isku dayaysaa maxaa ka wadaane anigii ishaan gurkaan kuma heshiinin ee nolosheenna ayaan isku fahnay labadeena inaan isguursano noloshiisana anigaa ku qanacsan muddo 3 sano ahna waan isnaqaanaa
labadeennana nolol cusub ayaan wada bilaabanaynaa kunaali anigana waxba iskama keengelin qof aad muddo 3 sano istaqaaneen waad baran kartaa dabeecadiisa inay xun yihiin inay fiican yihiin anigana si fiican ayaan u aqaanaa ishaana baay iswiitii ishaan waa qof aad iyo aad u wanaagsan aniga noloshiisa aadaan ugu qanacsanahay gabadheedii anigana farxad aad u weyn ayuuna siiyey waa sax kunaal wuxuu ahaa aniga noloshayda hore balse ma wanaagsana noloshayda hore noloshayda cusub inaan ku soo lifaaqo ishaan aniga waa mustaqbalkayga hadda quraacdan sii qaadaya cabitaanka soo diyaariya waayahay مسلسلكani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable tv iyo hooyada taleefankeeda ayaa dhacay meeshaan ayaanu ku hilmaamtay molly taleefanka igu damin waa ku barya arrin muhiima jirta waxaa rabaa arrintaas inaan kaala hadlo bari aabaheedo aniga mistii ayaa ahay mishtii gabadheed waxaan rabaa inaad ii sheegto adiga guriga markaad imaadee bari meesha ee aadayso ma kuu sheegtay iyo meesha xilligaas u baahnayd inay aado gabadheed ila hadal aniga saaxiibadaa wax dhan ma ii sheegay meesha aadaysa iyo meesha u socota laakiin aniga ayaa arrin u sheegay arrintaasoo ah inaad adiga aabahee aad tahay aday hooyana hore inaa isku qabteen arrintaas ayada ma ogeen laakiin aniga u sheega wax walba oo jira gabadheeda mishtii ma loo baahnay hadalkaas bari inaad u sheegto maxaa u samaysay aniga arrintan aan u sheegay inay dhib keenaysa ma u malaynayna iga raali noqo hadda dhib maa jira ii sheeg may gabadheeda hadda dhib ma jiro keliya waxaa rabay arrinkaas aniga inaan u sheego adiga markaad u sheegaysa wejigeeda wax maad ka dareentay micneega xanaaqan ka wadaa si kale muu noqdo wejigeeda maya wejigeeda xanaaq ma ka muuqanin waa iska faraxsanayd baree dhibaatana kama muuqanin maxaa dhacada guriga ma joogta miyaa baree may waxaa laga yaabaa bannaanka ciyaalka jooga in ay la ciyaarayso okay dhib ma laha aniga dib kaala soo hadli doona gabadheeda nabaday khayran kuu dhaafi bay hoy macan la jecladeeda wax walbay ogaatay mishtii ma u sheegto wax walba hadda aniga ma aqaan la jecladeeda xaaladday ku sugan tahay iyo meesha ay joogto iyo waxay dareemaysiinta wax walba adiga ayaa ka dambeeya na adiga soo kuma dhihin gabadhaa si fiican iiga taxadar daqiiqad xataa indhahaaga ha ka ag wareejinin maxaad samaysana ogow gabadheeda haddii wax soo gaaraan midda aan kugu dhigi doono lagamana yaabo inaan ku cafiyo ani hadda ka hor waa idiin sheegay waa yaalka warkiisa maba la aaminaayba waxaa idiin dhahay beri wax walba loo sheego hadda qof kale ka maqas xaaladeeda filimkani waxaa loo sidee noqonaysa idinka ma ogtihiin mana ka warhaysiiyaa wax walba waa iska yaraysiin haddii warkayga la maqan lahay maanta sidaanoo kale ma dhici lahayn ani waani dhahay gabartan wax walba oo run ah loo sheego idinka waxaa idhaahdeen gabartan dirinta loo sheego waa welwele maskaxdeed waa yartahay waa igu diidaan hadda waa kana maxaan samaynaynaa gabartii mahaana habeen saxbaxa waa inta ka raadinaynaa hadda waa kana wax walba isku qasay maxaa soo bilaatay ii sheega beedka waxaan oo dhan isku qaqaseena wax ii sheega be maxaan samaynaynaa hadda intaan gabartaa intaan ka baxay hooyada aniga ayaa si fiican u aqaan mooli way soo dhowaysatay guriga ayay keensatay garabna way siisay laakiin abaal maxay ugu dhigtay ninka ayay kala wareegtay hooyada waa qof xun arrintan oo dhan anaga waxaan kuugu sheegayna inaad adiga runta ogaato hooyada moolii nolosheeda ayay ku ciyaarta haddana adiga waxaa dan ku ah
mooli nolosheeda inaad ka dheeraato iyo weliba miskiin halkaana waa inaad iskaga tagtaa sida ugu dhaqsiyaha badan soco ha taagnaanin